shirkan jaraa'id waxaan ugu talagalnay golaha midowga murashaxiinta ay ugu talagaleen xaaladaha dalka iyo meelaha ay marayaan iyo dadaalada ay wadaan inay wax uga tilmaamaan ugu horeyn bulshada Soomaaliya meel kasta joogto waxaan u rajaynaynaa guul iyo baraare iyo barwaaqo abaaraha meelaha ay ka jiraan ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu abaarahaas ummadda ka qaado taa ka bacdi annagu haddaynu nahay golihii midowga murashaxiinta waxaan wadnay dadaalo nabadeed oo runtii waqti badan aan ku bixinaynay oo ay hareereynayeen had iyo jeer dulqaad iyo fahamsanaan aan fahamsanahay xaaladda dalka oo marayo dadaaladaasi ismaatanadayni iyo la kulankii bulshada qaybaheeda kala gedisnaa iyo daneeyaasha arrimaha Soomaaliya ama saaxiibada Soomaaliya intaba aan wadnay saakeeto waxaan dhaqdhaqaaq ugu dambeeyay wuxuu ahaa waxaan booqasho ugu tagnay halka ay ku shirayeen maamulada dawlad goboleedyada shanta dawlad goboleed madaxweynayaashooda waan la kulannay runtii waxaan u gudbinay dareenka aan ka qabno dalka xaaladda uu ku sugan yahay doorashooyinka iyo hagardaamada soo gaaray xilliyadii la soo dhaafay habka aan u aragnay inay wax ku xalismi karaan concernka aan arrimaha qaar ka qabno waxaan arkaynay xilli doorasheedkii daahay in dawladda dhexe gaar ahaan madaxweynaha hadda xilka ka dhamaaday oo asagu sabab u ahaa inay meelmari weyso oo maalmihii ugu dambeeyay oo walaayadiisa ay soo afjarmayso oo shirkii Dhuusamareeb ka soo dhaqaaqay kasoo dhaqaaqidaas ma ahan ka horna marar badan wax kasta oo doorashooyinkaas ama dib u dhigi karo ama meesha ka saari karo amba hagardaamayn karo in lagu dhaqmay hadda la soo gaaray xilli xasaas ah ay ummadda Soomaaliyeed ay u baahan tahay inay hanaankii ay ku soo heshiisay oo dib u heshiisiinteeda lagu saleeyo 4 sanaba mar in doorasho dhacdo ay tahay in la meel mariyo arrinka waxaan ku boorinay walaalaha meesha ku shirayay inay kaalinta mugale macnaha leh kaga aadan ay ka qaataan arrin doorashaan la isla soo dhaweeyo annagu hadaan nahay golihii midowga murashaxiinta waxa kale aan qabnay ay tahay gacanta amniga ama hay'adaha gacanta ku hayna hay'adaha amniga amarka iyo maaragtay hogaamintaba ku yeelanayso in ay noqoto gacan midii hore aan ahayn walaalkeen Maxamed Cabdullaahi Farmaajo gacantiisa in laga wareejiyo gacan aan amaana ku baranay ma ahan gacan aan uturid ku baranay ma ahan gacan aan wixii la isla lahaa in la isla leeyahay oo la dhaqanto ma ahan gacan dad ku maqan yihiin waaye dibadbaxa ku maqan yahay dad siyaasiyiin ay ku maqan yihiin meelo badan oo deganaasho ay ka jirtana deganaashadii ka saartay ma la arko wixii iyadu ay dumisay marka dambe ka sheekaysataa waxay ahayd kulankii aan la yeelanay golaha ama shirkii madaxweynayaasha maamul goboleedyada saaka ay ku shirayeen hotelka airport hotel taas markaan halkaas uga baxno qodobka labaad aan rabnay inaan maanta idin sheegno waxay ahayd arrimaha baarlamaanka ka socda runtii baarlamaanka xilligiis waa dhamaaday waxa ay wax ku bedeleen waa arrin hadda dastuur ka khilaafsan si jiritaanka iyo meesha inay joogaan waa la gartay laakiin waxyaabo waaweyn oo amba wax kordhin ah amba waxyaabo kale ah xilligeedii lama joogo awoodeedii sharcina ma ay laha warbixinta aan helaynay oo meesha nagu soo gaaraysa waxay ahayd u heelanaan sharci jabin ah dad kala dirid ah dadka isku horkeenid ah muddo u kordhin ah maamul 4 sano aan loogu bogin maalin kale loo kordhin la yiraahdo gaadma kala wadid ah isla socoshadoodii in la dhaawacayo ah dalkan hagardaamo wixii ka dhaco waxna waa adawaad iyo meelo loo maro waxna waa cid soo alifto waxaan aaminsanahay oo ognahay on hubinay in ay go'aan iyo abaabul ka yimid madaxweynaha xilkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inay ahayd runtii aadan uga soo horjeednaa aadan u cambaareynayna in la isku dayo in xilli xileedkii dhamaaday la soo nooleeyo ilaahay baa wixii dhinta soo nooleeyo laakiin waa soo noolaadeen markii la yiraahdo waa wax sharci darro ah oo aan la qaadan karin taasna bulshada Soomaaliyeed meel kasta joogto waxaan leenahay mana idin anfici doonto cidda sameeynaysa ma anfici doonto aayatiinka ummadda Soomaaliyeed dan uma ahan taa markaan halkaas uga baxno dalka Soomaaliya meesha uu socdo ayaan waxaan rabnaa ummadda Soomaaliyeed inaan la wadaagno dalka Soomaaliya anaguna meel baan u rabnaa Soomaalidu meesha bay nala rabaan madaxweynaha xilkiisu dhamaadana meel kale u rabaa waxaan u rabnaa deganaanshaan u rabnaa nabad baan u rabnaa miis ku dhamaata xaaladooda in laga dhigaan rabnaa heshiis inuu ku dhamaadaan rabnaa waxaan rabnaa waxay ku soo heshiiyeen dib u heshiisiinta carta lagu soo heshiiyey oo 4 sanaaleyna ahayd 4 sano mar in la isdoorto dastuurkan qoran inaan ku dhaqanaan rabnaa dadka Soomaaliya waxaan rabnaa cid markaas mas'uuliyadda madaxweynimada timaado dhaxal madaxweyne looga daydo oo dulqaad iyo maxaan ku yiraahdaa isku hayn iyo isu maslixid ah in laga dhaxlo sidii ku hor looga dhaxlay laakiin hadda 4 sano tagtay waxaan dhaxlaynaa hagardaamo iyo dhibaataan dhaxlaynaa marka dadka Soomaaliya anagu waxaan rabnaa arrimaha aan soo sheegnay doorashooyinkii nabadii wada hadalkii isku dhamaatadii wada socodkii isdhowridii isdil la'aantii 4 sanaaleydii intaas baan rabnaa nidaamka hadda joogo amba madaxweynaha hadda joogana waxa uu rabaa
kii yimid oo kamid dhigaha ahaa inuu noqdo doorashooyin hal mar dhacay oo xor iyo xalaal ku dhaca asaga keenay iyo inta kale xoog lagu xayuubiyo xoog lagu cajajuubo la dirqiyo la maxaan ku yiraahdaa arrimo noocaas ay rabaan waxay ka fikirayaan kordhin bay ka fikirayaan arrinkaasi Soomaaliya aaminideeda uu khatar ku yahay isla socodka uu khatar ku yahay amniga uu khatar ku yahay sameeyo uu khatar ku yahay maxamed cabdullaahi farmaajo khatar ku yahay xilka wuxuu ku quman yahay inaad ku timaado sanduuq dhala ah ugana degato sanduuq dhala ah haddii sanduuqa dhalada aadan ku imaanin qor aad ku timaadid waxay ku dhamaataan soo aragnan ognahay in qoragana la isla qabsado xukunkiina meesha ka baxo qarankiina dumo haddii aad sanduuqa ku timaadid waa ka jid baxa aad tiraahdid kolley la bedelo uun baa tahay laakiin waxa lagu bedelaya inay sanduuq noqdaan baa ku fiican iyadana bulshada Soomaalida waxaan u sheegaynaa jidka anagu aan haynaa waa jidka nabadda waa jidka anagu ogeydeen waa jidka doorashada waa jidka deganaanshaha waa isla joogidii waa isdil la'aantii waa dadka naga dhintay inaan dad kale ku darin jidka walaalkeen oo rabana waa boobka iyo dilka iyo qoriga walaalkeen qoriga kor u qaaday kan baan ku hayaa buu leeyahay si camali uu leeyahay qoriga marka kor loo qaado isagoo ciidan Soomaali marina gacantaada intaad kor uga hayn karto waa xadidan tahay meel uu ku dambeey doonana lama yaqaano dad badan oo siyaasadda Soomaaliya siyaabo kala gedisan soo maray ayaa qoriga ka hari waayay markii dambe qoriga asaga iska reebay waxaan rabnaa walaalkeen inuu sanduuqa ku haro laakiin asaga diidan Soomaaliya nala ogaato waa mahadsantiin mudan musharax oo santahay waxa isu ka sheeg Soomaali Keebal Saleeman Raage aan isweydiinayaa magaca uu qayb gashay kulanka maanta waxa loo yahay in maamulada qaar madaxweynaha erga ahaan uu diray Axmed Madoobe Siciidani marka midowga musharaxiintu kulanka miyay ka qayb galeen mise booqasho ay ahayd annaga kulanka waxaan u tagnay walaalaheena baan u tagnay fariimaan u wadnay aragtida annaga iyo bulshada Soomaaliyeed oo inteeda badan matalayn ayaan aragtida aan ka qabno geedi socodka iyo kaalinta iyaga ay ka qaadan karaan iyo waxa Soomaali maanta la siman ayaan u gudbinay runtii aadna way noo dhageyseen aadna way noo soo dhaweeyeen kama aanan kor tagin iyaga baan wacanay way waafaqeen waa u tagnay waxaan aaminsanahay ugu tagnay dadka u tagay waa laba madaxweyne hore waa ra'iisul wasaare hore waa wasiirro hore waa gabigood waa murashaxiin waa garaadley Soomaaliyeed aqoonyahan Soomaaliyeed faqaaraha siyaasadda Soomaaliya lagu yaqaano dad kamid hadaan la heli lahayn farmaajo maanta mana ku amar taagnaayeen siyaasadana kama soo dhex muuqdeen dadka soo qabtay oo keenay oo magacaabay oo ku garab istaagay iyo kuwa xilka ku wareejiyay waaye marka waa qaamaad amba soo joog Soomaaliyeed siyaasadeed ayaan ugu tagnaa meesha oo ku matalayna golaha midowga murashaxiinta Soomaaliyeed baarlamaanka Soomaaliya baarlamaan bedelay ma jiro baarlamaankii haddii la yiraahdo baarlamaankii ma shaqeynayana wax suurtagal ma aha marka si walba ha ahaatee baarlamaankii hadda waa shiray wiigana haddana uu shiri doonaa haddii Allah wadilo ogolaado walwalka iyo cabsida aad ka qabtaan in baarlamaan loogu yeeray covid ama inuu ka shiro walwalka adinka gaarka aad ka qabtaan muxuu yahay baarlamaanka Soomaaliya waxa ku dhismaa dastuurka qodobadiisu waa ay cad yihiin baarlamaanka madaxweynaadkiisuna waa ay cad marka qaarkood waxa la isku dayaa sharci baa la baasiyay shuruucdu way kala sarreeyaan dastuurka waa ugu sarreeya sharciga baarlamaanka soo saaraa ku xigo maamulada wasaaradaha iyo waxyaabaha la halmaalo iyo wareegtooyinka ku xigo baarlamaanka qodobkan oo asaga sii joogay shaqeynaya horta waa barnaamij sharciga ay soo saareen oo dastuurka khilaafsan oo 4 sano ka gadisan xataa joogistaas nafsadeedana markii si niyad wanaag loo fasirana waa inaan dalku baarlamaan male la dhihin oo baarlamaankaas uu sii joogo oo waxyaabaha necessary-ga oo kala shaqeeyo dawladda xukuumaduna markii baarlamaankaas waqtigiisa dhamaaday iyada nafsadeeda waa howl sii wada ayay noqonaysaa baarlamaan maalinkii xilkiisa uu jiray iyo markuu xilku ka dhamaaday isku awood ah adduunyada kama jiro sharcigaas halkaasna saasaan ka niri covid-19 baa loo ballamay been hore iyo abaabul hore oon meesha ku aragnay ayaa jira xildhibaanaduna aragtida kama midaysnayn xildhibaanada kalsoonida hadalkooda aan ku qabnay waxa ay noo sheegeen in kulankii saakay gaadmo looga jeeday annagu baarlamaanka hawshiisa geli mayno laakiin waxaan diidanahay in ummadda Soomaaliyeed la gaado oo maalina wax loo sheego wax kana la sameeyo ra'iisul wasaaraha markii la ridayay ajandaha la soo saaray ma aanu ahayn in ra'iisul wasaaraha maanta loo codeynayo isla markiina waa la sameeyay si qaladana waa loogu codeeyay riditaankiisa marka goboleedyada u tagteen oo aad tiraahdeen waa warbixin baan siinay iyagu way kala qaybsan yihiin waxa la ogyahay labana inay isla socoto saddexna inay isla socoto marka dad aan isla soconin maxaad u malaynaysaa oo sida ninkii ugu horreeyay uu sheegay
madaxweynuhu u yidhi erge aan anigu dira waaye macnaha waxa aad u sheegtaan ayagiiba islama socdaan ama mare dhalaya horta anagu fariin uma aanan geynayna dadka Soomaalida meesha anagu tagnay mas'uuliyiinta ah dareen iyo aragti baan la wadaagaynay ee dhama fariin sidoo fariintaas asaasiyaal kaliya ma aanay ahayn dad waaweyn